isku xidhaan haddana barrigoodkood mareeg bidixda iyo midig jaleec labadadaba mareeg quruxdiisa bada dalxiisku baahayay baldaya dalka baaxadda leh mareeg badaha isku xidhaan haddana barrigoodkood mareeg bidixda iyo midig jaleec labadadaba mareeg quruxdiisa bada dalxiisku baahayay waxaa ballankeedu yahay hobey heshiiska ku borriyoobey soomaali u soo baxoobey bukaanka xanaaniyoobey kambaaha waxsiiyoobey ku beeraalaalimoobey ammaanka balaariyoobey badeenna ilaaliyoobey khayraadka la soo baxoobey badbaada lahay waxaa ballankeedu yahay hobey heshiiska ku borriyoobey soomaali u soo baxoobey bukaanka xanaaniyoobey kambaaha waxsiiyoobey ku beeraalaalimoobey ammaanka balaariyoobey badeenna ilaaliyoobey khayraadka la soo baxoobey badbaada lahay madaxweyne ku-xigeenka guddoonka baarlamaanka golayaasha dowladda marti sharafta qiimaha badan ee ka soo qayb gashay shirkan madasha maalgashiga puntland dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan aada ugu faraxsanahay in shirkan uu maanta halka qabsoomo dadkii laga codsaday in lagu casumay inay halka yimaadaan ay soo aqbalaan intoodii badnayd waa calaamad dhiirigelin annaga noo ah in hadafyadii ugu waaweynaa ee aan ka lahayn shirkan intiisii badnayd ay qabsoontay waxaan sidoo kaleeto u mahadnaqayaa guddigii soo qabanqaabiyey shirkan oo runtii dhabar adayg iyo kalsooni ay ku qabaan inay hawshaan qabtaan muujiyey waxaan uga mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay shirkan qabsoomidiisa waxaan rabaa inaan wax yar iftiimiyo maxay dowladda puntland shirkan ay ka lahayd saaad ogtihiin dalka soomaaliyeed muddadii u dambeysay 29 sano ah wuxuu isugu jiray xilli dagaalo sokeeye socdeen iyo xilli kabasho iyo soo noqosho ay socotay puntland ilaahay mahadiis waxay ahayd meelaha nasiibka u helay in dagaalo sokeeye ay ka dhicin in xasilooni ay ka dhacdo in dad fara badan oo soomaaliyeed oo degaano fara badan oo dhibaato ka jirtay ku noolaa ay u soo qaxaan in laga abuuro nolol iyo horumar dhinacyada dhaqaalaha iyo deganaanshaha sida taariikhda laga sheegay dadka reer puntland waa dad caan ku ah nabad jacaylka iyo xasiloonida saldhigoodu noloshana uu yahay ganacsiga iyo ka shaqaynta horumarka xirfadii yarayd oo ganacsiga oo ahayd bucshirada ay lahaayeen waxay geysiisay horaantii qarnigii 19aad markay ku filnaan weyday deegaanadooda shaqadii ka jirtay oo ah wax isweydaarsiga inay u boqoraan deegaano kaleeto oo ka baxsan puntland
haddaad taariikhda dib u raacdaan deegaanada soomaaliyeed oo dhan waxaad ku arkaysaan dukaamadii ugu horreeyey iyo shaqooyinkii ganacsi ugu horreeyey waxaa lahaa dad reer puntland iyo dad carab oo weliba yeman u badan ayaa meelaha ka wada furtay waxay u tallaabeen africa waxaad ogtihiin kenya tanzania uganda zambia ilaa iyo south africa dadka inta badan hormuudka u ahaa ka ganacsiga waxay u badnaayeen dadka deegaanadan waxaan aad u arkay waddamada khaliijka cumaan iyo kuwait iyo imaaraadka iyo sacuudiga inta badan dad reer puntland ayaa ganacsiyadii ugu horreeyey xilli dadkaas ay hanti lahayn ay tilmaamayaan markaa dadkooda waaweyn la sheekaysatid waxay ku weydiinayaan odayaal hore magacyadood inaan naqaanay in kaleto maadaama ay soomaali ahaayeen dhulka caanka ahaayeen xirfadoodii ganacsiga nooca loo yaqaano oo trade-ka ah waxaa ku soo biiray muddadii u dambeysay jiil cusub aqoontoodu kabacday dhaqaalahoodu kabcay laakiin nasiib darro caqligii iyo aqoontii iyo kulli haddana waxay uga qayb qaateen dalal kale inay maalgelin ku sameeyaan oo dalalka africa u badan iyo dalalka kaleeto khaliijka waxaan isweydiinay maadaama reer puntland awooddaas ay leeyihiin dalkuna arrintii ay uga tageen ay ahayd trade-ka ma habboon tahay hadda in la abuuro jawi kale oo waxyaabaha khayraadka investmentigu waa uu ka duwan yahay trade-ka marka la sameynayo waxaa nagu soo dhacday inaan awood badan oo dad reer puntland ay dadkan leeyihiin oo haddii dib loo soo celiyo oo lagala shaqeeyo iyaga kabitaalkooda iyo kabitaalka ummadaha kaleeta adduunka iyo dowladda oo diyaar u ah inay fududayso dhammaan waxyaabaha ku saabsan maalgelinta oo u baahan qorshaha dheer hadday iskaashadaan amay suuragal tahay mar labaad puntland in ay hesho iyo soomaaliyaba fursad kaleeto oo ka ballaaran midda ay maanta haysato oo u horseedo dadkeeda xasilooni intaa haysta in ka badan oo dhibaatooyinka u badan ee dhinaca shaqala-aanta sababay inay dadku ama xajir noqdaan ama dalka ka qaxaan oo deegaano kaleeto nolol u raadsadaan amay suuragal tahay inay arrintaa ka bedesho hadafkaas wuxuu ahaa hadaf runtii dowladdu markay dood badan ka yeelatay ay u aragtay inay tahay munaasab in shir noocaan oo kalea la qabto hadafka labaad oo ku xambaaray wuxuu ahaa markii la arkay muddadii u dambeeyey 22 sano ay puntland jirtay waxyaabaha ugu waaweyn ay ku tiirsan tahay dhaqaalaha puntland xagga dowladda waxay u badnaatay hay-adaha deeqbixiyaasha ah in ay mar walba qorshaha ugu weyn u noqoto inay deeqbixiyaal raadiso ka kaalmeeyo mashaariicda horumarinta ee dalkan u leeyahay waxaa u soo baxday dowladda puntland hadday sidaa kusii jirto inay adag tahay deeqbixiyaashuna ka daari doonaan shaqooyinka hadda ay dadkooda u hayaan deeqbixiyaashuna hadhowtina dowladda puntland oon diyaar u ahayn ay isku soo dhici doonaan oo halkaas ay ka abuurmi doonto inay dowladda puntland mar labaad ay hoos u dhacdo ama kollaabsi garowdo fursadda aan hadda dowladdu ay iftiiminayso waxa weeye inay si taxadar leh oo horukac leh ay u maaraysto siday dadkeeda ugu adeegi lahayd inay furto maalgashi dhaqaalo u kobco dowladdu ay ka hesho cashuur dakhligaas ay ka hesho ay dadkooda ugu adeegto mustaqbalka dhowna ay uga kaaltoonto deeqbixiyaasha oo runtii daal badan ka muujinaya soomaaliya oo muddadii u dambeysay oo dhan gargaarka ka yimaada dowladaha saaxiibada nahay iyo walaalaha nahay ku tiirsanay waxaa isqaban weynay dalka soomaaliyeed waa qani inaan ku celcelinno xeebta u dheer ee soomaaliya leedahay adduunka africa bay leedahay ama talabaad waxay ku taallaa meel istaraatiijiya waxay leedahay macaadin iyo batrool waxay leedahay livestock aada u badan waxay leedahay beero wabiyaal mara iyo waxaa isqaban waayey baryo joogto ah oo maanta maalin walba caalamka loo fidinayo su-aashu marka waxay tahay suuragal ma tahay hadafkaas inay soomaali bedesho puntland waxay goosatay siday markii horeba ay soomaalida
oo xaalad adag ku jirta ay u goosatay inay maamul dhisato oo dowlad dhisato 21 sano ka hor oo runtii ay mahad badan ay ugu hayso shacabkii iyo madaxdii xilligaas garatay kana qayb qaadatay wanaagaas inay Soomaaliya inteeda kale u gudbiso oo ay ka shaqeyso in dowlad federaal dhalato oo dowladaha kale hadda abuurmay ee federaalka ay qayb ka qaadato waxaan haddana goosanay inaan mar labaad dadka Soomaaliyeed hormuud ugu noqono inaan noqono dad isku tashada oo isku tashigu uusan noqon mid dowladda waxay dadka Soomaaliyeed aad u yaqaanaa waxa la yiraahdo iskaa wax u qabso meel waa la dhisi karaa kaas laakiin isku tashi maaha waxaa la rabaa isku tashi waara isku tashiga waara ama nooc way dadku in loo jiheeyo dhinaca wax soo saarka inay dhaqaale samaystaan inay wax soo saaraan in kobaca dhaqaaluhu kor u kaco si dowladdu ay markaa u waarto oo ay u jirto arrintaas ayuu ahaa hadafka labaad oo aan isleenahay hordhac uga noqda in aad bartaan dadka Soomaaliyeed heerkii ganacsi ay yaqaaneen heer ka ballaaran oo ah in khayraadka dihim oo aan degdeg looga herin faa'iidada dhow in loo jiheeyo dadka waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadka reer Puntland oo ay dhiirigeliyay shirkaan inuu qabsoomi karo waa dagaalkii ugu horeeyay oo maalgashi wadani ah ay ku dhiiratay inay deked dhisto dekeda Garaacad iyo shirkadda wadda waan uga mahadcelinayaa initiative-ka intaa leeg wuxuuna u muuqday wax la xaqiijin karo xaqiiqdii waxaan rajaynayaa in fursaddan kambanigaas iyo kambaniyada kale aragtiyaha haya inay soo bandhigaan fursadaha maalgashiga ku habboon ee la hayo waxaan kaloo rabnaa fursadaha hadafkan inaan uga faa'iidaysano inaan isbarno dadka aragtida haya dadka dhaqaalaha dibadda haya iyo bangiyada curdinka ee ka abuurmay geeyiga Soomaaliya oo haya dhaqaalo ay meel ay uga shaqeeyaan la foorumkan wuxuu kulminayaa dadkaas iyo wuxuu kulminayaa oo kaleeto dadka hay-adihii deeqdana sii jiray oo hadda qaybtood ay ka shaqeynayaan deeqdii inay ku bedelaan inay ganacsiga naga caawiyaan oo geyl uga horeyso oo runtii investment dhinaca kalluumaysiga aada ugu howlan waxaan kaloo rabnaa inaan u gudbino hay-adaha iyo dowladaha saaxiibka nahay ee mucaawinada na siin jiray inay mucaawinadooda qayb ka mida u bedelaan inay maalgelin siiyaan ganacsatada diyaarka oo afkaarta haysa waxaan aad ugu rajoweynahay muddada uu kulankan socdo inay ka soo bixi doonaan mashaariic ay suuragal tahay in maalgashiyaashu ay ku qancaan fulintiisa iyo wax ku darsigiisa oo aan rajaynayno inay qayb ka noqoto mashaariicdaas isbeddelka dhaqaale ee aan ka filayno Puntland iyo Soomaaliya runtii Puntland waxay diyaar u tahay inay maalgashiga iyo ganacsiga ay dadka Soomaaliyeed marka hore u furto meel kasta iyo deegaan kasta ay joogaan ama Soomaaliland ha joogaan ama galmudug ha joogaan ama saaxiibkay gabayro Muqdisho ka yimid ha ahaadaan ama cid kasta oo rabta maanta inay maalgashato inay iyagu ahaadaan dadka privilege-ka hore leh sidoo kale wadamada adduunka oo aan kala sooc lahayn oo aan kala qoqob lahayn oo aan siyaasadaysnayn inaan u furno iyagana inay dalkan maalgelin muuqata ay la yimaadaan waxa kaliya maalgashiga ee xakamayn doona wuxuu ahaan doonaa shuruucda iyo xeerarka Puntland oo u samaysan oo wixii caqabadahaana laga bedelay inay saaxiib la noqoto maalgashiga waxaan ballan qaadaynaa maalgashiyaasha wax kasta oo shuruuc u fududayn karta inay ku dhiiradaan maalgashigooda inaan u fududayno waxaan ballan qaadi doonaa inaan protect garayno ama aan difaacno maalgashigooda mid dhow iyo mid dheer iyadoo ay Puntland taariikh dheer ku leedahay weli ma dhicin dad maalgashadayaal ah
dhowrka kunoo sano u dambeeya lala lahaa dad fara badan baa dalkan ka ganacsada sida taariikhdu ay qorayso nin hantidiisii iyo naftiisii wax la yeelayey lama hayo inta badan taas waxaan rajaynayaa dadka reer puntland inay diyaar u yihiin inay soo dhoweeyaan dadka maalgashayaasha ah shuruucda waxa laga bedelo waxaa ka mid a lahaanshaha qofka maalgashiga ajnabiga ah inuu boqolkiiba boqol yeelan doono hantidiisa uu rabo inuu maalgashto hadduu doonana dad soomaaliyeed uu la shirkoobi doono hadba sida uu doono aysan noqon doonin shuruud ku xiran in uu noqdo sida wadamada qaar ay leeyihiin inuu la yeesho maaragtay joint venture shuruucda kaloo muhiimka waxaa ka mid a xilli kasta iyo waqti allaale hadduu ganacsigiisa uu fahmi waayo inuu maalkiisa uu la bixi karo iska iibin karo cid ku wareejin karo sida uu rabo uu ka yeeli doono iyadana dowlado badan halkaas caqabad ay ka tahay waxaan ku dadaalaynaa wax kasta oo furi kara albaab aan ku yeelano saaxiibo iyo ehel cusub oo dalkaa dega waxaan diyaar u nahay cid kasta oo rabto inay ganacsi keliya u imaana degto oo maal gashato oo ku noolaato dhul aada u weyn bay puntland leedahay 3 meelood oo meel dhulka soomaaliya uu ka fadhiyo puntland buu ku yaallaa xeebta soomaaliya leedahay boqolkiiba 50 puntland bale 1600 iyo ziyaado kilomitir oo xeeba ayay leedahay dhul aada u udgoon weeye dhulkii udugaa la yidhaahdaa dhul aada u qurxoon weeye dhul aada u dihan weeye waxaan rajaynaynaa maalgashayaashu inay ku soo dhiiradaan oo ay yimaadaan waxaan si gaar ugu baaqayaa ganacsatada soomaaliyeed ee gaartay heerka maalgashiga dalalka kale ku sameeyey oo khibrad maalgashi leh waxaan aada ugu baaqayaa in ay puntland ay maalgashadaan waayo waa ay ka fudud yihiin qofka ajnabiga in lagu qanciyo iyaga waxaan ogahay ganacsato badan oo halka fadhida inay ku dhiiradeen mashaariic dhaxalgal ah oo deegaano kale ay ka sameeyaan baan ka warqabaa marka waan ku baaqayaa in dadka soomaaliyeed ee arrintaas sameeyey ay ku soo dhiiradaan waxaan si gaar ah runtii ugu mahadnaqayaa shirkadda dahabshiil oo hal ka soo jeedisay inay u gudubtay dhinaca maaragtay baabuurta oo Hyundai halka ka furaysa Hargeysana ka furtay waa runtii waa xirfad hor leh baabuurtu marka ay sidaas yihiin waxay wataan iskuuladii lagu dayactirayay waxaan dhiirigelinaynaa in dhinaca farsamada iyo wax soo saarka xoog aan saarno waxaan rajaynaynaa ganacsatada weliba xawaaladaha iyo bunuugta isku bedelay iyadoo dooduhu ay geli doonaan waxaa si gaara uga codsanaya bunuugta soomaalida hadda ay furmay inay dib u fiiriyaan qaabka ay dhahaan waxbaan u maalgelinaa oo runtii culays ku ah in dalku uu horumaro waxaan la socdaa shuruudaha maalgashiga ee bunuugtaas ay bixiyaan inay aada u adag yihiin waxaan ogahay interestka ama lacagta saaran magaceeda wax lagu sheegay inay aada u badan tahay marka waxaan rajaynayaa in dadka loo fududeeyo saasaa ay ku jirtaa qaliilu daa'im soomaalian origin wax yar baa ka fiican oo laakiin joogtada ah haddaad badisid faa'iidada aad ka rabtid suuragal ma noqonaysa ganacsiga inuu hori maro marka meelo gaara uga sheekaysan doonaa laakiin meelaha aan xoogga saaraya waxaa ka mid ah dhinaca financiga dadka ka shaqeeya inay helaan xal aan dembi lagu gaarin mararka qaarkood waxay dhahaan waa xalkan waa islaamkaa diiday laakiin waxa ogahay sida nafsirkeed hadda loo sameeyo wax badan oo shukuugaa ku jirta marka bahasha fududeeya oo faa'iidada faraha badan oo laga raadinayo ha laga yeelay si shaqo abuurka uu kordho dowladdu waxay kaloo insha allah diyaarinaysaa dhallinyarada xirfadaha gaarkaa soo bartay oo diyaarka u ah in ay maalgashi sameeyaan waxaan abuuri doonaa sanduuq dabcan aan la kaashan doono bangiyada laakiin aan mas-uuliyaddeeda qaadi doono in dhallinyaro yaryar oo mashaariic dhinaca sektarada dhalinyaro badan oo veterinary aan leenahay kuwa agriculture jira kuwa fisheryga soo bartaa jira kulligood hadda dowladda shaqo soo doontaan marka waxaan rabnaa dadka inaan dowladdu dabcan intay qaadi kartay hadda way haysaa ee ka badan
marka waxaan rabnaa shaqooyin shirkado kaleeto inay abuurmaan oo dadka faraha badan ee hadda dawladda kusoo wajahaan aan dib ugu celinno inay wax soo saarka ka qayb qaataan waxaan naftirkeeda tan ay nagu dhiirigelin doontaa oo ugu horreyso nala weydiin doonaa waa dhinaca nabadgelyada dawladduna markaas markay aragto dad danaynaya dalkan in lacag geliso waxyaabaha yaryar oo xagga amniga laga sheeganayana waxaan aada ugu rajoonaynaa qorshaha aan wadno inaan mar dhow inta yaroo jirta aan cirib tiri doono marmar baa waxaa la yidhaahdaa shabaab iyo daacish waxbaa joogjooga